Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalihi qaaliga soo dhawaada caafimaadkeena seetihiin. Maanta waxaa wadaa day in a life saakadii hore markaan soo kacay aan is dhahay quraaca samaysiinbo anagoo already naloo soo gaday ihab ayaan kusoo kacay. Marka subaxdeeda halkaan ayay iga bilaabanaysaa maasha Allah. Maxaa la dhahaa maadaama umul iskiya maaragta markaan cunuga aan caana siistay oo aan salaada tukaday ayaan hurdo iskaga laabtay. Markaan ku laabta soo kacay already museyga ayaa noo soo gaday cunto from ihab maasha Allah. Pancake ana iska cunaya hadda tartiibteeda already cunuga caana waan siistay kadib gabdhaheena quraac waan siistay marka hadda aniga halkaan iska enjoy gareynaya quraacdeedan iska cunaya tartiibteeda ayarko maba iga qasnaba. Haddana gabdhahayga ayaan timaha u hagaajinaya maadaama oo hadhow toolaha bohod uu dhahay waxaan kaxeynayaa meel ay ku ciyaaraan. Marka timi waa usoo bogay ayakii waa la kaxeeyay marka intay maqan yihiin ayaan waxaan iska sii sameynayaa casho yar bas xawaaye hilibkii arigan iskaga rida digsigan waxaa la dhahaa ceel tira ma garata hal mar laba halba shul lagu siinayaa daboolka loo dheereynaa xulbo xawaaye jam ayuu kaaga soo dhigayaano maba islureysid mano bas hilibkii waa soo shiilay maraq digaag iyo xawaajiyaasha dhan aan soo dardarsaday inta xawaajiye rabtay kista yar waan ku shiilayaa kadib biyo ayaan ku shubi doonaa markii uu karo kadib haddana waxaan ku darsan doonaa alaabtaan karsanayo maasha Allah kaasahay. Marka ii soo dhawaada walaalihii cusub soo dhawaada idinkana walaalihii hore ila joogeen soo dhawaada aad iyo aad waa mahadsantihiin waayo qofkii oo waqtigiisa ku huraa waxaa waaye waqtiga wax oo loo dhigta aabaska yar wax badan aan ku qabsan lahayn maaha marka qofka timekiisa ku siiyo waa inaa mahad celisaa. Marka waxaan rabay walaalihii inaan idin weydiiyo gabdhaha oo youtuber-yaasha cusub oo maxaa la dhahaa youtube-yada yaryar waxaan rabay inaan idin weydiiyo aniga hadda shuruudihii weli ma buuxinin haddana videoyaasheeda ads ku socdaan oo youtube u gashtay marka waxaas ma isku aragteen idinka laakiin haddaad shuruudihii buuxiseen laakiin waa caadi idinkaaba ku furanaysiin laakiin haddiina buuxinin iga soo jawaab insha Allah. Haddii hadda videogan aad daawanaysiin haddii oo uu ku jiro xayeysiin hoos igu qora insha Allah inaan ogaadaan rabaa asagana. Marka waxaan rabaa inaan kala ogaado videoyaasha dhan miyay aad saarteen mise videoyaal qaar ay aad saarteen. I don't know walahi wuxuu rabaa inuu ani iga faa'iido ka waran hadduu rabo inuu iga faa'iido muu easy daayo shuruudaha dhan like shuruudaha muu easy ka dhigana oo wada faa'iido lahayn laakiin wuxuu rabaa inuu ka faa'iido leh asaga kaligiisna inta soo gurguuranayso inaa asaga lacag u sii sameyso rabaa balse caadi waan iska gaari doonaa maalinaan gaarayna samaha meel loo ordayaa iska yar. Marka kaasa bahalkaasaan karsanayaa qamadiga oo carabka storekiisaan kasoo gatay carab storeka kasoo gatay waa qamadi wallahi beel waaye bariis haddaa baritid asaga bariis waxa ma ka bariyaysidbo aad u macyahay sida bariiska camal leh u kariye inta oo easy karaayo waxaan sameynayaa hilibkana ovenka ayaan ku tuuranayaa wax yar ansalaatana waan diyaarsanayaa. Marka hadday igu cusub tahay subscribe sar walaal hadda hore ila joogi jirtana aad iyo aad u mahadsan tahay hayga ilowin like iyo comment kaas inta ba dhiirigelin waaye iyo subscribe kaba aad iyo aad u mahadsan tahay. Marka ansalaatadana iska diyaarsanayaa afakaadaha iyo geedka hadda idin tusinayo waxyaalahaas ayaan ku darsanayaa cucumber rabay inaan ku darsado balse waan waaye ma yaalo maxaa la dhahaa dressingkaasaan ku darsanayaa laakiin haddaa dressingka aad rabin liin dhanaan iyo filfil iyo cusbo yar iyo saliid olive oil hadday isku walaaqdid aad iyo aad uu fiican yahay saladka haddii especially haddaa tahay qof oo weightka iska ilaalinayo
aad iyo aad kugu fiicanta marka inaad iska dhaafto dressingyaashaas oo ayagoo sameysan lasoo gadanayo. waxaa sameysan kartaa liin iyo saliid olive oil iyo maxaa la dhahaa iyo filfil iyo cusbo yariis isku darsanaysaa. waxa muuqka baryayaan dressing kaasaba aad iyo aad u fiican. marka waata cuntada dhan saan way soo diyaar garowday. ayarka saxankeyga ayaan kusoo diyaarsaday. banaanka la fadhiisanaa aan ku dhahay nigta ka qasaya magarat. ilaahay noo daaweeyo. waa kana hadana alaabta ayaan dhaqanayaa. alaabta maxaa la dhahaa hal mar la dhaqaa inta isku geey maaragtay. haddii oo baby yariiska oo hore iga seexdana waa iska dhaqaa laakiin haddii kalena waxaan sameeyaa ilaa intuu ku hurdaayo ayaan isku geystaano. bariyahan waxaan bartay inaan isticmaalo dishwasherka because before dishwasher ma isticmaali jirin. laakiin dishwasherka saan u isticmaal intaan uurka ahaa iyo hadda waan isticmaalaya. marka dishwasherka uu iga halaabay inaan waco waayo qolada oo dishwasherka iga sameeya aan dhaho markii la iga sameeyo asagana waan ku dhaqan doonaa insha Allah. before horta waxaan dhihi jiray dishwasher muxuu sheegayaa gacanteyda ku dhaqanayo laakiin time ayuu ku save gareynayaa hawaaye. marka baby yariis aa haysatid ilmo kale guriga ku joogaan guriga shaqadiisa aa haysid waxa waaye time ka dhan cariiri kugu noqonaya. marka wax walba oo ku caawin karo waa inaad sameysataa. karaale ahaada adkaan nijma meeshaan igu ammaansanaysaa telefoonka yartaa mogtahay. ana waxaan dhahay telefoonka time-ka qaata break time waaye telefoon ma isticmaaleysiin. marka anay agtay imaato marka igu korha hamaansanaysa waxay leedahay I'm bored telefoonka ma noo dhiibtid maxaa noogu diideysaa iyo tabletka. ana waxaan dhahay tabletka maanta dhan xilliga isticmaaleysa waa la dhaafay marka inaan mar walba isticmaashiin maaha indhaha idinku xanuunaya. aan dhahay time is over marka hadhow isticmaali doontiin insha Allah. clipkan yaraan kusoo daray oo ciyaalka ayagoo ciyaarayaan aabahood ayaa halaha yar iisoo duubay markii uu geeyay get air mise trampoline I think get air or trampoline I think they're the same. halkaas ay aadeen oo kusoo baashaaleen si fiican energy-ga looga soo dhameeyaan ku dhahay. hadda videogan markaa codka ku duuwayo waxaa waaye 2 days after that waaye marka videoyaal ii duuban waqti aan cod ku duubo ayaan la ahay boolahay balse alxamdulillah. haddii oo buuq aan maqashiin iska dulqaata waayo hooyooyinka way fahmi karaan ilmo yariis markaa haysatid waxaa waaye waa isku dulqaadanina dhib malama ilmaha waa ilmihiin oo kale marka dhib ha arkina insha Allah. tooyaasha dhulka la ii sharaxay ayaan clean gareynayaa haddana waxaa waaye ayaga clean gareyn jireen waxaa waaye way daalanayeen by the time ay guriga imaadeen. ana ma sii mashquulaninba markaan anaa sameeyay oo meeshooda ku kala guray. marka waa ka ugu dambeyntii waan soo habeeyay inay mar walba sida ay ahaadaan u fiicnaan lahayd laakiin lama helayo markay ciyaal yariis guriga ku joogaan. ilaahay noo deysto. idinkana aad iyo aad mahadsantihiin waqtigan daa soo gaateen intaan waqti kale ka kulmeen waxaan idinka tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bye guys.